إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد dariska hore waxaynu ku soo qaadanay laba arrimood ka hore wuxuu ahaa fadliga uu soomku leeyahay fadliga uu soomka ilaahay dartii loo soomayaa leeyahay midka labaadna waxa uu ahaa bisha ramadaan waxyaabaha ay ku suganto oo aynu dambaysiinay oo ahaa markaa laba arrimood miduun dadka muslimiinta ah inay arkaan iyo in markaa soddonkiita hore u dhammaado kolka soddonkaasi uu dhammaado hadal ma jiro laakiin aragga ayaa waxaynu soo xusnay in culimmada barhkoodna ay leeyihiin waddamada islaamka oo dhammi way isku raacayaan qayb ka mid a haddii laga arko iyagoo xadiidka daliishanaya culimmada barhkoodna ay lahaayeen intii isku madlacihiba way israacaysa qowl saddexaad ma jiro labada ahayn marka intii isku madlacihiba way israacaysaa haddii layidhi innaguna intii aynu markaa la madlacnahay innagana wayna raaci karaan marka aynu aragno iyagana way ku raacayaan waynu ku raacaynaa markaa mawduuca haddii aynu intaa kaga gudubno ahaa bisha ramadaan waxyaabaha ay ku sugmayso iyo sida markaa shareecadda islaamku ay u sugtay iyadoo iskhilaafkaba arrintaasi ay soo afjarayso haddii soddonka shacbaan kamaalkeeda un lagu xisaabtamo iyo dhammaystirkeeda iyo bisha ramadaan araggeeda haddii labadaa midun lagu xisaabtamo waxa ay noqon doontaa in markaa khilaafkii uu soo ururo laakiin inaan la odhanin weeyo qof waliba inaanu odhan anigu waa inaan gaarkayga u arkaa intii meel wada joogtaaba hadday yidhaahdaan annaguna aanu gaar u aragnaa dee bishu marka ay biladka tahay dadkao dhammi ma wada arko badh gaara arka in koobanoo indhafiiqanunba aragta intaasi kolka ay caadila yihiin waa laga qaadanayaa aaggooduna uu isku dhow yahay kolkaas dadka muslimiinta ahina waa dad ummad keliya ah oo aan ahayn kuwa markaa cibaado kala duduwan gudanaya ilaah keliya wada caabudayaan cibaado keliyana way gudanayaan markaa inay midnimadooda ilaaliyaan waa lagama maarmaan oo xaqu siduu yahay loo raaco waxba lasii tacqiidin oo la celcelinin waxaynu u gudbi doonnaa markaa insha allahu bisha ramadaan fadliga ay leedahay fadliga bisha ramadaan gaar ahaanteeda dariska hore waxaynu ku soo qaadannay soomku guud ahaantiisa fadliga uu leeyahay laakiin kani waa gaar ahaan bisha ramadaan abi hurayra waxa uu leeyahay radia allaahu canhu marka bisha ramadaan ay soo xaadirtay soo dhowaato ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maqaal aad u qaaliya buu asxaabta u jeedin jiray iyo waaniya wacdi bushaarana waa siin jiray markaasaa waxa uu yidhi qad jaa'akum shahrun mubaarak iftarada allaahu calaykum siyaamah tuftaxu fiihi abwaabu aljanna wa tuglaqu fiihi abwaabu aljaxiim wa tugallu fiihi shayaatiin fiihi laylatun khayrun min alfi shahrin man xurima khayrahaa faqad xurim rawaahu axmed waannasaa'iyu waalbayhaqiy bisha ramadaan markay soo xaadirtaa buu nebigu odhan jiray bil barakaysan baa idiin timid haddaad dadka muslimiintaa tihiina ku bushaaraysta ilaahay waxau idinku waajibiyey soomkiisa inaad la timaadaan maalinkii waxaa la furaa albaabada jannada ayaa la furaa qofka dhintaa wuu gelayaa markaa naxariistii ilaahay baa markaas soo jihaysan albaabada naartuna waa xidhan yihiin ilaahay baa ka badbaadinaya addoommaha mu'miniinta ah ee xijaabta bishaa dhexdeeda shayaadiintii baa la xidhayaa habeen baa ku jira aad u qaaliya bisha ramadaan waxa uu ka khayr badan yahay camalka la sameeyaa camal la sameeyey 1,000 bilood oo aan laylatulqadri lahayn 1,000 bilood waa 380 sannadood iyo 4 bilood meelahaasaa lagu qiyaasaa waa hal qarni wax ku dhow marka muddada dheera intaa leega camalka la sameeyo waxaa ka khayr badan habeenkan camalka la sameeyo qabuulkiisa barakada uu camalkaasi leeyahay fadliga uu addoonku ka helayo duruusaha dambaynu ku qaadan insha allahu habeenkaa iyo halkaa nusuustu ay ku tilmaamaysa inuu ku jiro 10ka dambe oo habeenada isdhimana iyo camalka uu qofku ku dadaalayaa inaanu ahayn lacag iyo adduunyo uu baadi doonee makfiro iyo naxariis inuu ilaahay weydiisanaya inay tahay
waxaa markaa halkaa aad ka arkaysaa dadaal dheeraada inay addoomuhu muujiyaan bishan dhexdeeda oo aad iyo aad camalka ay u badiyaan waana mawsim khayraadku uu badan yahay oo fursaddiisa ay tahay in laga faa'iidaysto xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusayey bisha ramadaan dhexdeeda in aad iyo aad camalka looga faa'iidaysto ilaahayna uu ku dhaafayo dunuubta waxa uu nebigu yihi waasalawaatu alkhams waaljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatun lima baynahun ida ijtunibat alkabaa'ir rawaahu muslim salaadaha shanta ah inta u dhexdhexaysa iyo labada jumce inta u dhaxaysa iyo labada ramadaan inta u dhaxaysa waxa ilaahay uu ku dhaafaa dunuubta oo cibaadadan dambe tii hore dunuubtii ka dambaysay baa ilaahay uu ku masaxaya sida bahashaa iskiisada laydhaa loo mariya qalinka ayaa ilaahay uu ugu masaxayaa tabaaraka wa tacaala isaga ayaa cafiskiisa uu badan yahay laakiin shardi buu nebigu raaciyo ah haddii dunuubta waaweyn laga dheeraado dunuubtaa waaweyni maxay noqonaysaa waa gaalnimadii iyo ilaahay baynu ka magan gallay iyo sixirkii iyo dilkii dadka muslimiinta ahaa lagu dilayay bikayri xaq iyo gardarro wixii isagana la odhan jiray qadfu lmuxsanaati alkhaafilaati almu'minaat dumarka iska mu'miniinta ee xumaha ka warla oo xuma lagu sheego iyo faaliyayaashii oo iyagana lala xidhiidho oo loo tago cuquuqul waalidaynkii dunuubtaa faraha badan ee xadiidta nebiga ku cad kuwa iyaga laguma dhaafayo cibaadooyinkan laakiin maxaa lagu dhaafayaa waxa ilaahay uu ku dhaafayaa attawba annasuux towbad wanaagsan oo fiican oo qofku uu la yimaado ayaa ilaahay uu kaga salabaynaya oo tawbuunbay markaa u baahan yihiin oo qofku hadduu ka soo noqdo ilaahay waa ka dhaafaya dembigu nooc kastaba ha ahaado waxaa kaluu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam mar uu ka hadlayay bisha ramadaan fadliga ay leedahay iyo in lagu dadaalo bishaa camalka oo aad cibaadada loo badiyo man saama ramadaan wa carafa xuduudah wa taxafada mima kaana yanbagii an yataxafada minhu kafara maa qablah qofka sooma bisha ramadaan xuduuddiisana garta xuduudda ilaahay u dhiguu yidhi ha dhaafin waxaa ha samaynin ee ka dhowrsado wixii ay habboonayd inuu qofkani ka dhowrsado marka horeba wuxuu iska ilaalinaya macaasidaha aad isaga sii ilaaliya bishan dhexdeeda qofkaa isaga ah ilaahay waxa uu ka dhaafaa kafara maa qablah wixii dunuubahee hore ilaahay baa ka dhaafa tabaaraka wa tacaala waa fadli aad iyo aad u weyn buu sheegayaa naskaasi shuruudaha lagu mutaysanayana wuu raaciyey nasku markaa waxaa laga maarmaana dadku had iyo jeer buuqoodu wuu iska badan yahay xantooda iyo beentooda iyo bilaa macnaha ay kuula imanayaan wararka beentaha ay kuu dhiibayaane qofkii uu sii naqilayo kaftankii dicaayadii wax alla waxaasoo dhammi waa waxyaabaha ay habboon tahay ee waajibka tahay qofku inaanu soomkiisa iskaga waxyeelaynin mar walba iyaday mamnuuc ka tahay qofka haddana wakhtiga uu cibaadadan ku dhex jiro inuu ka sii fogaado weeye dee si cibaadadani ay kaamil ugu noqoto oo nuqsaani aanay kaga imanin fursadu weyn oo dembiga lagu dhaafo bishan inay tahay baa nebigu uu xusaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa xadiid waxa uu ku yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih rawaahu axmed wa asxaabu sunan qofka bisha ramadaan sooma isaga oo rumaysan ballanta ilaahay uu qaaday ee ah inuu ajri weyn helayo isaga oo muxtasiba oo ilaahay kaga doonaya ajri oo aan cidna istusinaynin cidna ismaqashiinayn camalkaa wanaagsane uu gudanayo qofku ilaahay baa waxa uu ka dhaafayaa dunuubtii hore iyo kuwii dambe intaba ilaahay waa ka dhaafayaa subxaanahu wa tacaala isaguu fadligiisu badan yahay in badan waxaad arkaysaa bushaarada u weyn ee axaadiidtu ay xambaarsan tahay inay tahay dunuubtoo qofkii laga dhaafo iyadoo naxariis ilaahay u siiyo iyada oo uu janneeyo iyada oo shafaaco iyo ergo wanaagsan camalkan saalixa ahi uuga galo ilaahay xaggiisa oo qofkii uga ergeeyo kuwa loogu bushaaraynayaa qofka waa kuwa bushaarana xaqiiq ahaan kuwaasaa mutaystay markaa lama laha adduunyo intaa la eg buu helayaa lacag intaa la eg mansab ama darajo intaa la eg nusuustu ma xusayso maxaa yeelay islaamku waxa u arkayaa waxyaabahaasoo dhammi inay yihiin waxyaabo iska sokeeya caadina ay iska tahay qofku inuu marna la kulmo marna waayo suuragalna aanay ahayn mar walba inuu nicmada adduunyada ku dhex jiro mar walbana uu ka faramadhnaado wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas ee waa isbedbeddelka ah marka arrinta muhiimka ah
dheeraadka weyn ah fadli ilaahay ah ee qofku uu baadi doonayaa waa dembigoo laga dhaafo iyo ilaahay oo janneeya maxaa yeelay dee shay cid kale oo xigta ah ay ku siin karta maaha ama cid kaleoo saaxiibba tihiin ama dhaqaalahaagoo dhan haddii aad ku wada bixiso kuma goynayo maanta intaasoo dembi in laga dhaafo qofka maalkiisoo dhammi uma goynayo waa fadli ilaahay uunu siiyo un tabaaraka wa tacaala markaa fadligaa helidda uu qofku helo waa shay bushaaro mudan weeyaan haddii bisha ramadaan fadligeedii aynu xusnay camalka dhexdeeda la samaynayaa aad inuu u qaali yahayna aynu xusnay waxa iyadana islaamku uu aad cabsigelin badan u soo jeediyey qofka afuraya bisha ramadaan sabab la'aan qofka faatir noqonaya faatir ee iska cunaya ee aan xishoonayneen ilaahay ka xishoonayn aadamo kalena ka xishoonayn naftiisana aan u tudhaynin cadaabna aan ka warwarayn qofkaasi ciqaabka uu yeelanayo cabdillaahi bnu cabbaas radia allaahu canhumaa isagiiyo aabbihiiba ilaahay ka raali noqdo waxau idhi nebiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo leh cura alislaami wa qawaacidu diini halaaa calayhinna usisa alislaam man taraka waaxidatan minhunna fahuwa biha kaafirun xalaalu dam shahaadatu an laa ilaaha ila allah wasalaatu almaktuuba wa sawmu ramadaan rawaahu abu yaclaa wadaylami wa saxaxahu dahabiy tiirarka islaamku waxa uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa 3 5 bay ahaayeen laakiin soomka iyo intii aan la waajibin sakada iyo xajka ayuu xadiidku ahaa markii dambe labadaa sakadii dadka muslimiinta ciddii iska bixin karaysa lagu waajibiyey xajkana lagu waajibiyey ayaa dabeetana 3dan ay ku sii darmeen kolkaas 5 arkaanu islaamka ahi way soo wada gelayaan labadan kalena nusuusta kalea tilmaamaysa haddaba waa lagu bineeyey arkaanu islaamkaasaa lagu bineeyey islaamkii oo sida gurigu uu ugu taagan yahay tiirarkaa ayaa uu ugu taagan yahay islaamkuna arkaanta ah mid ka mida qofka ka taga buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wuu ku gaaloobaya dhiiggiisuna xalaal buu ku noqonaya ama xad ha loo dilo ama gaalnimo ha loo dilo inkastoo nasku waa caddeeyey inuu ku gaaloobayo qofkaas midi waa tawxiidka shahaadatu an laa ilaaha ila allah hadduu ka tago qofkii waa mutaysanayaa dilkii iyo salaaddii iyo soomkii haddaba soomkii ka tegiddiisii qofku inuu ku gaaloobayaa wuu sheegayaa naskani waxaa kaluu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofka bisha ramadaan ruqsad la'aan iska afura sanadka oo dhan hadduu dib u soo qalleeyo kama qallaynayo maxaa yeelay dee sanadkii miyaa laga helayaa maalin ramadaana lagama helayo ramadaan ajrigeedii maalinle lagama helayo sidaa darteed qalluhu waa ku waajib qofkana wuu soo qallaynayaa laakiin ajrigii ramadaan oo kale heli maayo marka halkaa waxaaynu ka fahmaynaa nuqsaanta weyne uu leeyahay qofka bishaa iska afuraya marka in laga xishoodo bisha ramadaan cunidda wax la cunayo waa arrin waajiba weeye cibaadadaana in la gutaabaa waajiba xaaraamaha la karinayana la iska ilaaliyo iyo caadadan dadku ay caadaysteen inay xaraamta cunaan ilaahay baynu baryaynaa inuu inaga badbaadiyo balaayooyinka iyo nuqsaanta ah bisha soomkeeda iyo cibaadadana inuu inoo sakhiro darisku halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu